Assalaamu calaykum. Waxaad nagala socotaa kanaalkeena YouTube ee Shukri Linguistic Institute. Waa maalin Khamiis ah, 10 bisha Abriil 2025 kuna beegan 12 bisha Shawaal sanada 1446. Waxaan ku guda jirnaa barashada luqadda English. Ha hilmaamin inaan ku jirno 90 days challenge oo ku doonayno inaan ugu baxno qaybta beginners iyo qaybta intermediate. kusoo dhawow cashirkeena maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay words sidee loo akhriyaa xarfahanay words markii la akhrinayo ingiriiska markii joogo sidee loo akhriyaa. Okay, meesha waxaan leedahay new chew news stew drew few. Okay, macnahooda aan ku raacay. New waa cusub waay. I bought a new car. Waxaan soo gatay gaari cusub. Chew waxa waaye rug waay. Chew the food very well. Cuntada si fiican iskaga rug. Okay, chew. He's chewing a ball gum. Wuxuu rugayaa xanjo. Okay. News waxa waaye warbixin ma taqaanaa news name. Good news warbixin cusub. Okay. Have you listened to the BBC news? Ma dhageysatay newska BBC? Okay. Stew maraq waay. This stew is nicely cooked. Maraq si fiican baa loo kariyay. Stew waa maraq. Drew waa xooray waa. Throw xor waay. Threw waa xooray waay. So he threw the ball to me. Wuxuu usoo tuuray ambirta ayuu isoo tuuray xaggay. Ambirta ayuu usoo tuuray xaggay. Waa waqti la soo dhaaf marka. Ambirta ayuu usoo tuuray xaggay. Okay. Ambirta ayuu u tuuri rabaa dadheerad. He wants to throw a little markaas. So threw adalla maxaa waay? Waa tuuri. Okay. Grew waa ku koray waa. I grew up in a village. Waxaan ku soo koray meel tuula ah. Okay. Newdan tanay waxay ku kala bedeleen tan kay ka bilaaban tan kay mala. Marka tanay kaydane waa aqoon. I knew I'm a good boy. Waan ogaa inaan ahay wiil wanaagsan. Okay, brew shooro waay. I drew a cat on my exercise book. Waxaan ku shooreeyay yaanyuur ayaan ku shooreeyay buugayga. Okay, few wax yar waay. I have few issues to share with you. Waxaan leeyahay waxyaabo yarba in la wadaagi rabaa. I have few things to do. waxyaabo yar oo qabta ayaan jira. Few wax yar waay. Read these sentences. Akhri jumlooyinkan waxay ka saacidayaan adeegsiga luqadda. Number 1. He never knew how to read. Muusan ahayn mid garanaya wax si loo akhriyo. He never knew how to read. Muusan ahayn mid garanaya si wax loo akhriyo. This stew is nicely cooked. Maraqani si fiican ayaa loo kariyay. This stew is nicely cooked. Do you want a new chat? That's what I have. Do you want a new shirt? Ma rabtaa shaar cusub? I want to buy few things. Waxaan doonayaa inaan gato wax yar. I want to buy few things. Waxyaabo yar doonayaa inaan soo gato. Okay. The bad news made him cry. Warbixinta xumeed ayaa ka dhigtay inuu ooyo. Warbixinta xumeed. Bad news warbixin xun ama hadal xun oo soo gaaray maqalku soo gaaray raadiga ka dhigaysatay. Okay. The bad news made him cry. News xumaa ayaa ka yeelay inuu ooyo.
intaan ay cashirkeena ku egyahay kanalka haddaa ku cusub tahay subscribe saar haddaa hore noola sii joogtay muuqaalka like sii commentagana nooga soo qoran insha allah dhiirigelin bay noo noqonaysaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.